soo dhawaada saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee sheekadii Saabir iyo Samiira meeshii noo joogtay ayaynu ka sii wadi doonaa intaynaan bilaabin qaybta labaad waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada mahadsanid markaas ay gabadhii intay dhoola cadeysay ku tiri fiiri intuu soo jeestay ayuu ku yiri hee waxayna ku tiri horaan ku arkaysaan filaaya Soomaha markaas ayuu ku yiri haa waxaan ahay wiilkii farmashiga maalintii daawada ka gadanaysay kadib hadalkii ayuu isku qasay oo uu kala hadlay sida qof ay ka ahayd marle yaa ku bilaabay sheekada markuu hadalkii ku badiyay iyadana ay iska aamusan tahay kaliya ay dhoola cadeynayso oo indhihiisa ay ku maqan tahay markuu arkay ayuu aamusay wuuna xishooday hoos ayuu fiiriyay kadib ayuu ku yiri yaraani noqo hadalka ayaan kugu badiyay markaas intay qosashay ay tiri waa caadi sii wada hadalkaaga kadib intuu qoslay ayuu ku yiri ma ku baran karaa adoo raali ah kalka bay ku tiri haa waan ku soo dhaweynayaa wuxuu ku yiri magacaygu waa Saabir adigana waxay ku tiri anigana Samiiro barasho wanaagsan sidii ay isku barteen kolkaas ayuu ku yiri jaamacadda ayaan ka sii daahayaa waa inoo mar kale waxay ku tiri haye Saabir barasho wanaagsan sidii ayuuna kaga soo dhaqaajiyay oo wuxuu sii aaday jaamacadiisa isagoo faraxsan dhowr saacadood kadib Saabir waxa uu ka soo baxay jaamacadii wuxuu soo aaday xaafadoodii markuu guriga ka yimid uu nastay ayuu isiri bal wax Samiira ilaa nambarkeedii hore ayuu u haystay nambarkii ayuu ka wacay wayna ka qabatay waxayna ku tiri hello waayo markaas ayuu ku yiri waa Saabir kolkaas ay tiri Saabir sidee ku heshay nambarkayga wuxuu ku yiri mar walbaan jeclaa inaan ku soo waco balse qalad inaad ii fahantid ayaan ka cabsaday maalinkii waxay gadanaysay ayaan xifdiyay nambarkaaga isbarasho kadib waxay bilaabeen inay isxiriiriyaan Samiira aad ayay u jeclaatay Saabir akhlaaqdiisa xishoodkiisa iyo degnaantiisa ay aad ugu bogtay maalinta uusan isaga soo wicin iyada waxay jirtay waxayna noqdeen dad isjecel oo isxiriiriya xilli walba marmar wada balama oo kulan wada yeesha xiriir dhab ah ayaa dhexmaray waxay saas u wada socdaanba oo ay maalin walba jaceylkoodii xoojinayaan wuxuu waqtigu isku raba Saabir iyo Samiira uu sii kordhayay jaceylkooda maalinba maalinta ka dambaysa heer waxay gaareen ay kala maalmi waayaan labadooda Saabir aabihiisa waxba kama uusan qarin jirin mar waxay ahaayeen wiil iyo waalid marna waxay ahaayeen laba saaxiib oo sirta kala qarsan Saabir ayaa u sheegay aabihiisa in uu gabar bartay oo aad u qurux badan uuna jeclaaday iyadana ay jeceshahay kadib aabihiisa ayaa waxa uu ku yiri waad iga farxisay wiilkaygiiyo anigana waxaan caado u lahayn inaan guursano anagoo yaryar sidaas darteed waxaan rabaa inaan ku geeyo sida ugu dhaqsiyaha badan saan u arko ubadkaaga gabadhaasna waxaan ku doonayaa Saabir ayaa arinkaas ku farxay ugana mahadceliyay aabihiis kadib ayuu wacay Samiira si uu ugu sheego in aabihiis uu ogolaaday in Samiira uu doono una u guuriyo Samiira sidoo kale way ku farxday arinkaasi waxayna ku tiri macaan waan rajaynayaa inaan is alfano aniga iyo adiga aan guri ku wada noolaano aan ubad ku dhalo Allah inoo rumeeyo erayadaas isagana aamiinta ayuu raaciyay maalmo waxay wada socdaanba Saabir ayaa ka codsaday Samiira inay ehelkeeda u sii sheegto inuu rabo reerka inuu ka soo doonto waayahay ayayna ku tiri wayna u sii sheegtay aabaheed balse aabaheed wuxuu ahaa nin damac badan wuxuuna jeclaa gabadhiisa inuu ku daro nin lacag leh oo guri leh oo gabadhiisa mustaqbal qurux badan u sameyn karo sidaas ay tahayna ma sii waraysan gabadha oo ma dhihin ninka ku soo doonanaya bal iyaga waran wuxuu jeclaystay ninka markuu la kulmo inuu isaga waraysto uuna wax walba afkiisa kaga ceelbaxo waxaa la soo gaaray maalintii Saabir loo soo dooni lahaa Samiira Saabir aad ayuu u faraxsanaa uuna labistay labiskiisii kuwii ugu quruxda badnaa ayuuna xirtay uuna isqurxiyay maalintaas hadduu baalan lahaa farxad ayuu la duuli lahaa waxaa isa soo raacay Saabir iyo aabihiis waxayna soo aadeen dhanka iyo gurigii Samiira markii ay yimaadeen guriga waa la soo dhaweeyay waana la casuumay casuumaadda kadib waxaa la gaaray xilligii la iswaraysan lahaa ee xaqiiqda casuumaadaasi laga hadli lahaa
la soco qaybta xigta. Mahadsanid.